deegaan doorashadu waa Puntland ay ka soo horjeedaan in cutubyadan la guda galo oo la dhameystiro marka see isku qabanayaan adeero Puntland horta annaga u joogna muxuu ahaa cid kale oo loo soo doortay ma leh cutubyadan wixii deegaanka iyo dadkooda u daran annaga diidi lahayd waxaan u darnayn oo maslaxad Soomaaliyeed oo u roon oo waxay tabayeena in laga shaqeeyo annaga waajibaadkeeda annaga leh qof marka siyaasiya iyo mid kale oo ku daban oo ag la faysanaya muxuu ahaa warka uu muxuu ahaa halka la taagan yahay oo aniga hay sugto dhitooy anaa ku dhigay anaana ku dhamaya dhito meesha dhito maaha maslaxad Soomaaliyeed weeye marka cidna u oolimayso waa laga shaqeynaya annaga matalna waana muxuu ahaa hadii ilaahay dadkeeda leeyahay wax fiican oo danahoodana baan kaga shaqeynayna wax daradooda kaga shaqeynayna qodobadaanuna wax inaba ha yaraatee deegaan Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed masaalix darro uma taabanayaan masaalixdooda ka shaqeynayaan waana qodobo inta rahamadna oo la rabay in laga shaqeeyo waana la soo gudbiyay SSC soo gudbisay marka shaqo wanaagsan baa la qabtay isla Puntland waxay sheegtay hadii lagu dhaqaaqo oo la ansixiyo afartan cutub in iyada wax shaqo ay soo lahayn aysan dhaqan gelin doonin si arintaas ku xalinaysa Puntland iyo laba maaha way ka badan tahay mujtamac iyo deegaan iyo dad weey marka xaggaasna madaxweyne waa joogtaa halkana mas'uuliyiin madaxay waa joogaan marka iyaduna mar haddaan marka laga soo tago siyaasadda iyo isriixriixayo xaqiiqda iyo muxuu ahaa maslaxadda aadaysa dadkuna aqli buu leeyahay dareen buu leeyahay akhris buu leeyahay kulli meelaha ku wada jiraan bal wixii u daran Puntland wixii u daray iyo wixii ku gooniya in la arko laakiin siyaasiya ama muxuu ahaa oo leh ma garanaysaayo aniga halkaas berrito wax ka sii dabaysanaya intaan mid wax ku diido ma shaqaynaysa taas waa lagu soo daalay